waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha ka dhacay magaalada Helsinki ee wadanka Finland qaybtiisii labaad daawasho wacan waxaan hadda insha Allah taala u yeerayaa walaal aad noogu weyn aadna qiimo u leh rageenan reer Finland aad iyo aad isu yaqaanaan xiriir wacan ka dhaxeeyo oo kooxda Southall matalaya walaal Cumarayto inuu ku soo dhawaado mikrofoonka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. runtii waxaa mahad iska leh Ilaahay. intaa kadib waxaa mahad iska leh guddiga soo qaban qaabiyey xafladan qiimaha badan iyo intii ka soo qayb gashayba ciyaartoydii 12 kooxood ka koobnaa odayaasha halkan fadhiya ee guddiga ah ee isugu jira musharaxiin isugu jira odayaal dhaqaatiir ah intaba waxaan leeyahay ku soo dhawaada xafladan qiimaha iyo qaayaha badan. waxaan kaloo mahad u celinayaa kooxdii ku guuleysatay koobka 12 kooxood loo dhigay Stockholm. runtii gari 2 qofood kama wada qodliso haddii koox ay ku guuleysatay kooxaha kalena waxaan leenahay insha Allah sanadka dambe ayay ku guuleysan doonaan. waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan haddana u yeeraynaa kooxda Manchester walaal Iidow inuu halkan yimaado. waxaan marka hore hambalyeynaa kooxdii ku guuleysatay koobka iyo kooxdii laga qaaday koobka labadooda waxaan hambalyeynaa. wixii aan ku hadli lahaa waxaan ku hadlay odageeni weynaa ee Baabnuunow. marka waxaan leeyahay guddigii farsamada ee qabanqaabiyey xafladda inay suurto gasho marka inta ka soo qayb gashay dhammaan kulligiin oo wada mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan hadda u yeerayaa walaal isagana aad qaali u ah oo matalaya kooxda Wembley akh Islow inuu halkan yimaado. Yasdino maj Yasin Dino halkan laga rabaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام الدمانتين وحن نسقو سلامي سلامة مسلم كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو جوهر يسي إلهي بمهله مرلباد وحن ربعنا ونمهد عليو جد دي أن برامج كان قروح بدن لسوا أباب الشيء وحن كان ربعنا ونمهد عليو كوح دي كوب كقاضي وحن لي هاي مبروك يو كوح دي سيمفايل أن سكن كشيء waxaan kaloon rabaa inaan u mahad celiyo kooxdii semifinalka dulqaadka keentay ee ciyaartii ka fadhiisatay idinkana waxaan idinku mahad celinayaa sidii sharaftan hay aad samayseen. mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa guddidii arrintan soo qabanqaabisay barnaamijkan tirada badan leh isku taxalluujiyey inay si qurux badan u qabtaan. waana mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gunaanadkii aan soo gaarnay waxaan hadda u yeerayaa walaal Cabdullaahi Shukri oo Dream Teamkii laga adkaaday matalay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore jeclaan lahaa inaan u hambaliyeeyo anigoo ku hadlaya labadii kooxood ee ciyaaraha Finland uga qayb gashay wadankan Finland. kooxdii ku guuleysatay kaalinta koowaad ee ciyaaraha ee ka socotay wadanka Sweden waxaan leeyahay hambaliyo. midda labaad anigoo ku hadlaya magaca Finland labadii kooxood ee ka qayb gashay waxaan raaligelin u dirayaa kooxdii ka socotay magaalada Caterholm
oo ay u badnaayeen ciyaartooyda waddanka Jabuuti ka soo jeeda waxaan leeyahay raalli ahaada khalad wuu dhacaa waana la saxaa mar kale reer Finland ahaan raalli naga ahaada waxaan marka saddexaad hadalkayga ku soo gabagabeynayaa aad baan u faraxsanahay in 10 wadan ama 10 kooxood ay noogu yimaadaan waddanka Finland oo bahda isboortiga ah oo ay la socdaan mas'uuliyiintii iyo ciyaartooydii hore ee professionalka ahayd ee wasaaradda isboortiga ka soo shaqeyn jirtay waxaan leenahay waa idin mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina waxaan rajaynayaa safar nabad leh inaad ugu noqotaan waddamadii aad ka timaadeen wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhammaan waa salaamantiin madaxda ciyaartooyda guddiga qabanqaabada tartanka qabanqaabisay wax meeshaan hadal badan inaan ka jeediy marabo dhammaan waa salaama mideeda kalena ciyaaraha waxa muhiim noo ahayd inaan kaga soo qayb galno is araga dadkii muddada badan aan kala maqnayn 10 sano ilaa 15 sano aan is arkin oo is aragna marka inta kadibna aadan ugu faraxsanahay natiijada ama meeshaan gaarnay wax dhiban oo aragna sanadka damnaga sitaan insha Allah haduu Ilaahay karaal naqdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسي جبتاك الرباو فتحي بروفيسور فتحي والله الغالي waxa uu gartay koobka inaan siiyo macna isaga وجبجبدي ومرينا إن شاء الله وأنا حقيقي وحنو يرايا ولا لا تقال نوجوا أخ موجي وكوحدة نورتيجا إنه هالكن يماذا موجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو مانسي وقتي قابن والسلام يا وانسود وين وحماد وعلنا الله سبحانه وتعالى مرات وحماد وعلنا يا جودي قمقاوي سبورتي فيلان يدك كل شقي أنا محل لا هاي وواحد لقى فيلاي مكوا معنا هاي واحد مرور إنه سميان واي مركا أنت إنك بدأ إن سيحوج إن شاء الله ما هذا شرفت لي إياه أضياش والسلام يا إيجان وحن كلو سجار والسلام يا كوحدة النورد لندن أو مرور بالديار واه إن عياران كسوق يبقشن حوج سنة تاكلي سنة فن جلسة حتى وحن كلو ما هادو علنا كوحدي كوكوليس كوبكا على عدي تيم كيسة وأمهد علينا waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan dadka martida ka soo qayb gashay halka isugu yimid iyo guddiga qabanqaabada mar walba waa ku mahadsantiin imad iyo qoojiye asad iyo joojoole iyo ragga kaloo la shaqeeya waanu ku mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isagana siyaasi ah oo waddankan jooga aadna macruuf uga ah samigayna ah asad caalin inuu bal insha allah laba kelmad yiraahdo assalaamu calaykum I asked my friend, where is our mother? Mother is very important. Where is our woman? That I ask also my friend. I need always our woman is very important. waxaan jecelahay inaan hooyooyinkan iyo gabdhaha meelaha aan isugu nimaadna aan keenno mentality wiilasha la rabo in la badbaadiyo hooyooyinka badbaadiya waan ka naxsanahay in meeshan gabar Soomaaliyeed loo diidan yahay imid dhow jeer baan kala hadlay arrintan nimayo waxaan jecelahay anagu inaan qaabkan u noolno wax ka bedelno haddaan doonin waddankan ku noolaano ilaahay ka baqa gabdhihiina kor u soo qaada halkaas fariisan karaan waxay ogaan karaan caruurtoodu si yihiin waxay ogaan karaan si loo nool yahay hal iska daayo cunsuriyadan ay ragga Soomaaliyeed qurbaha la yimaadeen oo ah in gabdhaha gadaal laga mariyo war ogolaada in la isbedelo waxa weeye fikirkaas waa adag yahay hooyada Soomaaliyeed ayaa waddanka xoreysay aniga waxaan u soo istaagay si fiican dhageysta gabdhaha Soomaaliya sportiska aniga sportiska
gabdhaha Soomaaliyeed ee sportska ku jiray way ka dadnimo fiiceen wiilasha sport ku jiray anigu kuleed waxbarasho la falan ku soo koray hadda meeshan kuma dheeraanayo ee waxa runtan idin sheegay aniga Soomaaliya ma degayso inta gabdhaha Soomaaliyeed banaanka lagu hayo wassalaamu alaykum wa barakaatuh khiliyaan yaa yeeraa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo markuu horeys meeshan waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa guddigii qabanqaabada ee sportiga ee Old Boys oo soo qabanqaabiyay tartankan oo maanta maraya marxaladii ugu weyneed maxaa yeelay waa taariikhda meeshii ugu badneed ee muxuu ahayd Soomaali soo timaado ama kooxo Soomaali soo imaadaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ururkii qabanqaabiyay isla markaana isku taxaluujiyay in ilaa 12 kooxood inay martigeliyaan isla markaana isugu keenaan halkan yani geliyayna muxuu ahay waqti iyo nolol iyo dhibaato fara badan dadkaas waxa waaye waxa ay u sameynayaan wax kale maaha waa sport jecel qalbigooda uu ku weeyahay sportiga marka idinka waxa la idinka rabaa inaad ayaga caawisaan maxaa yeelay waxa halkan u timaadeen oo kulligiina aad muxuu ahay u ogolaateen inay ayaga idin abaabulaan ama idin qabtaan shaqada waxa waaye waa in bulshada Soomaaliyeed ee sportiga ee Yurub ku nool inay wada kulanto marka sportigu waxyaabaha ugu wanaagsan ee laga helo waxa ugu weyn waa isbarasho wanaagsan magac wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan iyo isku xirnaan fara badan maxaa yeelay aniga hadda aad arkaysaan meeshan ay ugu arkaysaan waxaan maanta meeshan kula kulmay dad aan aniga wax soo baray maanta meeshan kula kulmay oo aan waqtina u heli lahayn inaan arko ama aan muxuu ahay la soo noolaado Saciid oo kale Saciid Buuwaaye waa ilmihii ugu yaraa ee muxuu ahay aan waxbara maantana nasiib wuxuu ilaahay ii siiyay inaan halkan ku arko يعني سبورتنج فرحديث التموال سبورتنج فرحديث التموال كان بعرف كذا كان توصل بعرف كذا بعرف دور توصل دعاية ما أعرف دور توصل يعني سبورتنج فرحديث النوع هو ما هن إلا سكوا طبعا سبورتنج ما هن إلا سكوا صدق ما تنتهي ugu dambayn ninkii ugu dambeeyey ee kooxdii ugu dambeysay matalayay kooxda Banaadir Cali Shire please gabagabadii waaye Cali Shariif aan dhihi lahaa waa ninkii ugu dambeeyey oo maxay ahayd bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa ugu horreyn dhammaan martida nagala soo qayb gashay xafladdan xiritaanka ciyaaraha Finland iyo dhammaan ciyaartoyda iyo maamuladooda guddiyadooda nooga yimiday waddamada Yurub waxaan kaloo salaamayaa u mahad celinayaa guddigii qabanqaabiyey ee ururka ciyaaraha Finland ciyaaraha wanaagsan anigoo ku hadlaya sida horeba loo sheegay labada kooxood ee Finland waxaan raaligelin ka bixinaynaa haddii ay dhaceen qabanqaabadeennii wax khaladaada ay ka dhaceen waxaan ka raali gelinaynaa ciyaartoyda iyo guddiyadooda nooga yimiday Yurub waxaan codsanaynaa inay naga aqbalaan raaligelintaas dadaal unbay naga ahayd laakiin dhaqan ayaan u leenahay haddaan Soomaali nahay in markaan ciyaarayno aan xoogaa isjiidno
laakiin haddana markaan kala tegayno waxaa dhacda in ayadan waxba laysu qabin lagu kala tago waxaan mar kale leeyahay marka dadaal unbay naga ahayd waana rajaynaynaa haddii qalad dhacay inaan dib u saxno meeshii laysugu yimaado oo soomaali marti ah laysugu keeno qalad uu dhacayaa bini aadan baan nahay qaladaadyadii dhacay in la saxo kuwii adinku aad aragteenna noo sheegtaan annaguna dhexdeenna qaladaadyadii aan aragnay isu sheegno dibna aan u wada saxno marka walaalayaal anigoo ku hadlaya magaca kooxihii Finland waxaan idin leenahay laga raalli ahaada mar kale iyo mar kale naga raalli ahaada kooxdii koobkan qaaday ayaan rabaa inaan u mahad celiyo ayadana kooxdii laga qaaday iyo tii qaaday oo wada Soomaaliya la yiri marka walaalayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan bilaabaynaa biladihii haddii la yidhaahdo hadiyadihii waxaan dadka ka codsan lahayn maadaama insha allah aanu gabagabadii soo gaarnay qof walba inuu walaalka hadlaayo qadarin u muujiyo waayo ruuxa bani aadanka marka la dhegaysanayo ayuu hadalku macnuhu leeyahay martina waa nala joogtaa oo intaas waxaa laga yaabaa observation inay samaynayaan marka waxaan hadda insha allahu tacaala aan rabay inaan mayga ku wareejiyo sidii loo guda galo hawlihii bilad bixinta guddoomiyaheenna imad inuu insha allahu tacaala halkaa kala wareego barnaamijkii bilada bixinta waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وحان بالله مردو إن أنا معرفتي عن هذا الكين أنا سوق وجوينه وأنا هذا الكين أدي سوحرنه كدبنا عن بالله بلدي يكوب كي إن نبنه ساسن عن مركز عن وحي عن هوش أسي وذنه عشان وحي كلا عن هرو وذنه مركز أدي هذا وما سنتين سيدا قيمة عن نقص قيم كشان أنا أسكودي أهان وح نوه الله ونسوق وجوينه صاحب كان قاجع عبد القادر مع العلمي وشقدان لانتيس أيس الصورة كشان حدوس الصقع هين ما دام أننا عن تيم كيسين هاي شقدان أنت هذه بدن الصقع سوحة لي واحد أركيسان وأنا صاحب كنا وأنا الصقع أنا ما أنت نص حراي ما دام هو شانس أنت وجوبنا وشقدي كقبت بسم الله الرحمن الرحيم إن لما معناها ذلك كسوق قلي وقت جود أوصل ورير كود كسوق تج واحد لنا أمر كره رالي قليم بوحدة إذا سينا نجار رالي هذا عدي وحيابا قرداد يدعين وحنسيدو كلام معناها اللي قرد كي لقى قال كوحدة وإذا كجسوا ينقرد كا رالي نجا هذا ولا لا معناها معه لبدي كوحد وأنوهم بلينا يا كوحدي كوب كقادي يا كوحدي معناها لقى جول سلبدا وأنوهم بلينا يا معناها ماشي اللي سقوي ما دينا مرة بفنا في عن معناها نسووني ما نوعي ولا تنمو يكال قعلبا نسووني معنا كوبدا وجوني إن لبدا كوحدنا كوحهم ببدلات شرعية أنا دقنا وحنجعلنا هنا ولا لينو إلى لسان أنا مال عدالة دراكم مسوكرين ما رجع لي مال عدالة دلاين أعرف ما أنت مركز يارتين معنا أنا ماشي كوكر حي معناه إذا ما أنا ننحن آي هذا ننحن آي أنت إذا ما سمعين إذا ما يرتين مركز وحمد الله يقرأ لي هذا مركز أركواحن أنت بنا وحلقة يا باش إم مرة بدن مركز دلقات مركز دمينا دلقات واي يقرأ لي هذا ما تهداي أرتين معناه أنا سكلا ما بدن في عن بعض أرتين ما أنت نحوم هاي دلقات وان حفلة دروانو جبو هذا نوحام بعيننا بالذي السلام عليكم وعن هالكان ربنا مارت إن صدق عدان بلادات عن سينو صدق عدان يراو آدي أنه للشقيي مارادونا يساعد أحمد يرى أحمد يرى رالي نجا هذا وعن المامني إن رالي أحمد سك وعن المام رالي نجا هذا أحمد حسن هاوي أحمد
أحمد لما كلمة إنه ما هلكن كيرا ربنا أحمد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد وحن لينا ما أنت تاريخ ذي كدع عضي عيارها أولد بويسكا وين أكسونين تاريخ ذا يا قرطي ومركي وجوه الرئيسي لواتن سنة بهذا سبورتيكا وهجامية وها إمد يقاتش أي كوجوليستين مينستر كمذا مينستر هذا فيلان إنه كسقيب قلو تانا تاريخ هذا وحاله تانا تاريخ هذا وحا إسكاله قوتشي إمد أن وليبا سيفي عنو وضا الشقين وصومالي نمو إيو به سبورتي جعيل نمو أن كسو وضا قيب قادرني وحان فيلايا قلبت وحي دعوين أكسونين هديرنا وحان ليه هاي gratis til Stockholm oo badiyay kooxdii Stockholm oo badisay aan leeyahay gratis aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya waxaan rajeynayaa marka kale soo socota inagoo isjecel bahda isboortiga qabyaalad ayagana inaga maqan tahay inaynu meeshan ku nimaadno ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أكسون هذا وحين وحكنا قلني قبقي صومالي نماد وننكي قبياغا أورنجري صومالاي مسيدا بعيدا بيسي waxaan rabnaa inaan ku bedelno Soomaaliya caawa taariikhdan ka dhacday inuu wanaagan Ilaahay isugu keen sahlo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay saaxiibkay Cabdirasaaq Gaagaale iyo Siciidseena waqti badan isla soo qaadanay inaan iyagana is aragnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay warag walaaladaya marka London joogay qayb weyn ay ka qaateen markaan waxbarashada ku jiray soo inaad ogsoonataan ninka walaalka meeshuu ka soo jeedo Ilaahu muu Hargeysa ka yimaado Ilaahu muu Muqdisho ka yimaado إلههم جروا كيمادو إلههم بوصاص كيمادو سيد عبد الرزاق والتنمى ذا وجرته إن المكرستو وكسونانو هذه آيات ما سنتين إن شاء الله أركت الدنبنا ونسكو أركدونا بسم الله الرحمن الرحيم وحان هذا قلينا بالذي لبحين لها سيدي يوكلا قيب سناينا وحي هايد عن برنامج كو دياريني ان قفكي جولدلينتا قاضي ان iyo بورتيريغي ugu fiicnaa iyo best player ciyaartooygii ugu fiicnaa iyo kooxdii ugu asluub fiicnayd shanta qodob baan soo qaadanay bilad qaybinta waa goolka qofkii ugu dhalin badnaa iyo qof bortieriga ugu fiicnaa iyo best player ciyaartooyga ugu fiicnaa iyo kooxdii akhlaaq ahaan iyo wax walba isku wadatay marka hadda waxaan ku bilaabaynaa gool dhalinta ninkii ugu sareeyay ilaa intuu socday ciyaaraha wuxuu ahaa walaale Siciid Cali inuu halkan yimaado waxaana bilada siinaya insha Allah Bila Ahmed Diiriye inuu halkan yimaadaan rajaynayna insha Allah imad ha asaga waay Bila لبعض فتك حبيبة يا فاخر كوك لبعضنا لبعض قنبلة ياسين يا مكايل قنبلة كوكر قنبلة حسين أيو وكم بس السلام عليكم دمان وسلامتين كوح بدن أو واحد شرا خلادات تبعية كل خلاد ولا جل أنا حتى وأنا لقى جلي قف كيو أتكيس بدن أيا كوب كقاضي وبالله توفيق وحرمنا waxaan isleeyahay gabagabadii amarayna walaale yaan marka loo yeero oo rabnay inaan hadiyad guddoonsiino waxaana guddoonsiinaya walaal Fatxi Maadila yaayo soo dhawaad wallahi yaayo kooxdii ka tirroom annagu halka wada fadhino tashanay waxaan ku aragnay nin hadii calooshiisa waxa ku jira la baaro in horumar fiican la gaarayo waxaan aqoonsanay inaad ku gudboonsiino hadiyadina la sii waxaan rabaa hadda inaan u yeero bortierigii ugu fiicnaa oo ka socda North London nin saaxiib qaali ah weeye
runtii xirfaddeedana wuu lahaa siduu u boodaayaa laga fahmi karay nin waayo araga waaye ninka nafta noo keena waaye markaan London tagno marka walaalka Horeej aan u yeerayaa waxaana siinaya walaale Cumar Dhagaweyne Cumar Dhagaweyne ninka odaga waxaa la siiyey ciyaartooyga ugu fiicnaa best player run ahaanna waa ninka cadibay ciyaartooygii meesha nasiib uma yeelan inuu koobka ku guulaysto laakiin dadka ciyaaraha yaqaana meesha isku yimid waa ninka isku raaceen waa ciyaartooyga ugu fiicnaa isaga ayaana ku guulaystay best player waxaan hadda kooxdii ugu dambaysay shantii qodob hadda ay tirinayay waxaan ku soo koobaynaa kooxdii ugu asluub fiicnayd runtii cayaaro iyo khibrad aad looga helayna soo bandhigtay koox runtii aad u fiican bay ahayd waa kooxda Wembley waxaana mas-uul ka mida Wembley Yasin Dino ama Mustafa ama ragii kale inay qof yimaada inta looga baahan yahay waxaana guddoonsiinaya Axmed Barsey iyo Cabdicasiis dhegeysto dad waaweynaa leeyahay dad isboorti ah dadkiina isku daydaan weligeedna waxaa fiican in meel haddii la sumaado wax laga faa'iido waxaan maanta markaan meesha fadhinay aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa ninkan walaalka iga soo horjeeda xasan macnaha waxaa fiican meel walbo la isugu yimaado in la noqdo qof dhegaysta ah oo laga faa'iido marka waxa uu ka hadlayay wax aad noo anfici ahaayeen aad ugu mahadsan yahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hadda u yeerayaa kooxdii kaalinta labaad gashay inay halkan soo istaagaan waa kooxdii Wembley waxaana guddoonsiinaya walaal Axmed Faaqid iyo Cabdi Fitig Congratulations kooxda North London oo runtii ciyaaraad u fiican soo bandhigtay waxayna ku guuleysteen kaalintii labaad koox aad iyo aad akhlaaq iyo ciyaar iyo in badan soo bandhigay bay ahaayeen aad baana runtii uga mahad celinaynaa kaalintaas ay gaareen marka waxaan doonaynaa kooxdii inay soo xaadiraan dadka martidaana inaan dhegaysanno kooxda koobka qaadanaysana aan markhaati ka noqonno
kooxda Sweden ha loo saaxiibo maadaama ay ku guuleysteen wixii dhacay waa dhacay marka bal hal Thank you, sir. halka waxay niga muuqdaa waa koobkii iyo biladihii oo la guddoonsiinayo kooxdii ciyaaraha ku guuleysatay waa kooxda ka socotay dalka Sweden waa kooxdii ugu ficil badnayd ugu ciyaar wanaagsaneyd ugu qabqab badnayd waxaan leeyahay Saciid iyo Aydaruus Cali macna ceesh ala ciyaartooy ficil dhiig dagaal wax kasta isku darsadeen si koobka ugu guuleystaan waxaan leenahay well done aloogu hambalyeeyo kooxda guuleysatay Sweden inkastoo waxyaabo iska jireen laakiin waxa waaye waxaa koobka u qaaday Mr. Aydaruus ها السلام عليكم هرتا aad baan u faraxsanahay inaan caawa aan meesha sugu nimaano midda labaad waxaan filayaa koobkan wuxuu yahay waa kii saddexaad oo aan Stockholm aan u qaadano marka waxaan ka raaligelinaynaa dadkii ka xumaaday ama dadkii ka xanaaqay ama wixii qalad dhacay laakiin koobku mar walba Stockholm waa insha Allah وانا ما تنتين waxaan rabnay walaalkeen qaali ah oo Sujino inaan guddoonsiino hadiyad gaar oo ay ugu talagashay jaaliyadda Finland waxaana siinayaa malaaqi Soomaali weyn oo dhan malaaqi reer Finland inuu guddoonsiyo insha Allah معلن حاشبة قدونسينا يا وملاقي صومالي وين ودن ملاقي الرفيلان وي dhalinyartii reer Djibouti ahayd ee ciyaarahan ka soo qayb qaadatay oo ummadda Soomaaliyeed ay u qireen inay hayeen ciyaartooy aad iyo aad u qaaliya laakiin nasiibku oo ka badiyay waa Gaasle waa Maxamed waa Cabdiraxmaan waa Idris waa Muxu waa Jamaica Cabdiraxmaan oo nin qaali ah oo isagu naga caawirmay Shooli Ele oo isagu koox kale u ciyaaray barnaamijkeennii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan barnaamijkan la mid aan ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi